adiguna xanuunkan intee sano baad la nooleed oo xanuunkan ku hayay iyo sababihii uu kugu dhacay horta waxaan malaynayaa waxaan hubo oo waa lay baaray oo xanuunkaad qabtaa baa la igu yiri waxaan malaynayaa weeyo in badan oo aniguna aanan ogeyn cidina igu ogeyn anigu waxaan ahaa korneyl ciidamada kamid ah xilligii aasaaskii Puntland markii dambana Cabdullaahi Yuusuf ragii koonfur u raacay federaalka raacay baan kamid ahaa gabar laba ciyaar ay hayso xaaskayga ama uga tagay gaalkacyo gabadhaas 2006 laga helay reerkii waan rartay iima sheegin reerkii waan rartay magacay meel la yaadaan tago reer ayagu degaan waaba la iga hor yimid tuulada horteedii naga noqaaliyay reerkaaga waa sumaysantiin waa dagaalaba qori baan qaato ka bacdi adu waa tagay magaaladii waxaan ku naagahana waa in ka fuulaya ragana waa duraya ayagii baa islaayay idinka eedaa keenay idinka dhibka keenay suuxi dambe lacag la ii keenay ari irmaan baa la ii keenay guri baa la ii siiyay barkad baa la ii kacab waxa la yiri dadka nabad geli halkaas hal ku qashay waan jooganoo fiican si aan u kacsanaa baa gabaraan isku reeranaayo maqaadeeda 70 nin fadhido waxay igu reebtaa inay xamanto anoo ag maray sina nervous baan ahaa waxay tiri nuuriya ka iris baa laga helaa la yiri saanta ku soo noqdaan nawaaga wada qayli jirnaa baalku igu dhacay waa isbaaradu ma isbaadhay say 70 kiiba waa ka yaacay kuraastii way jireen waa sayidina oohin bay la dhacday sidii waxa jirta in dadku aaminsan yihiin bas arinta waxa ku ogtay qof qurbaha jira oo saan wadanka jooga qof xanuun la nool inaan qurbaha tiigin aan la qaxan karin oo aan la ogoleen ما بين مريكان بيجوغان يوروب دل كستو adduunka way joogaan mid kale waxaan la kacin karo ka xun cudurkan hawdadka ba la soo reebaa laakiin HIV anoo qaba meesha iska hata waxa dhacay inaan soo bandhigo oo iraado anoo xanuunka la nool gabadha ay rabtaa ka warrama taanu hadda xanuunsan baa gabar iga codsateen bulshada aniga hadda way dhacday aniga xanuunka la nool igu dhacday صح تي وكديد waxaan oga diidana waxay mid kale waxay ahayd caqabad kale waxay ahayd gabar aan ogeyn oo guriga aniga aan ku noolaa markaas xaasna ima jooga xaas bay jooga xaaska ta ninkaan ay soo helay ila fadhiya xamuud bay soo helay marka gabar baa markaa waxay tiri anigu oday aabay xanuunsan haysta waxay tiri ka warhandaan ma adu hadal ay ugu tugtay life ime orada gabdhaha way xishoodan Soomaaliyeed marka adu hadal ay ugu turturtay inay rabto kala waxaan ku yiri xanuunkaas la noola boorsadeeda bay ka carartay gurigeyga hadda joogto ana ehelhaanba meesha u joogto marka hore moogta oo family aniga waxaan ka soo jeedaa hooyo xaga waxay ka soo jeedaa gobolka Gado halkaas ka timid marka waxaan u soo dhaweysay family hooyo xaga family ahaana xageed joogta guri kale oo magaalada Kooneed iyadoo bay igala soo baan kala hadla boorsadeeda aan ka daba jiido u geey marka waxa keenaya waa culays ka intuu la eg yahay oo waxyaabaha ugu daran waxay ahayd inaan lacag aan rabin lacag baa way jirtaa laakiin aan u baahnayn laakiin muhiimadeedu waxay tahay inaan badbaadino hal qof taasna danteedu ku jirta